Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamijyadeennii wacyigelintaha mid ka mid ah. Maanta barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa waxa loo yaqaano siigada ama masturbation-ka ama luqadda carabiga lagu yiraahdo caadatu sirriya. Siigaysigu waa dhaqan u xun bulshada, balse dadka qaar ayaa waxay ku dhiirigelinayaan bulshada oo waxay leeyihiin siigaysigu wuxuu u fiican yahay caafimaadka. Balse midaasi waa been oo aniga ayaa idinka jaahil bixinaya maanta. Annagu waxaan nahay dad Muslim ah. Diinteena Muslimka waxayna faraysaa inay tahay siigadu mid aan fiicnayn oo dhaqanka wanaagsan aan u fiicnayn. Waxaan idiin sheegayaa siigadu inay u daran tahay caafimaadka, weliba xaaladaha nolosha oo caadiga basic ah macala inay isa u fiicnayn. Siigada waxay u xun tahay qofka caafimaadkiisa. Waxyaabaha u keeni kara qofka inuu siigaysto waxaa ka mid ah kelinimada iyo inuu qofku keligii meel cidla u joogo. Waxaa kaloo ka mid ah qofku inuu daawado filimaanta xunxun ama muuqaalada anshaxumada iyo inuu baahi u qabo galmo. Siigadu waxay kuu sababi kartaa inay kugu dhacdo hurdo la'aan joogto ah, madax xanuun iyo stress. Waxa kale oo siigadu khatar ku tahay xubnaha taranka ee ragga iyo dumarka. Xubnaha ragga waxa ay khatar ugu tahay waxaa jira xubinta taranka xidido yaryar oo xubnaha taranka gala. Xididadaas oo ay damage ku tahay isticmaalka xoogan aad u isticmaalisid gacantaada. Waxa kale oo aad ka qaadi kartaa siigaysiga indho la'aan iyo maskax xanuun iyo jahwareer. Marka la fiiriyo xaaladaada caafimaadka ee siigaysiga, siigadu waxay khatar ku tahay dhammaan caafimaadka jirkaaga ama noloshaada oo dhanba waxay ku tahay khatar. Fadlan haddii aad muuqaalkan daawatay, fadlan subscribe noo saar oo nagu dhiirigeli si aan u soo badino muuqaaladan wacyigelinta.